الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. ما أنت وحين كدر تلابسون دونا موضوع ليرادو حفظ القرآن. إن حفتيو قرآنك إن لقد دالو قرآنك حفتيسا إن إلهي سبحانه وتعالى وحيري وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قرآنك وحن أسود الجنا أما قرآنك وأسود الجني مد مد حنبارسن أما مد وياهي حنبارسن رحمة إيو عافمات. قرآنك ما دام أو عافمات ياهي وقلبك كعافمات يو أو جلدك كعافمات يو وحا مهم وقف كستبه إنه حفتيو. لكن حفظ القرآن وشيء وين ومجتمع ما أنت إنتي سبضان وهلنا مسيحي صوت حفظ القرآن وشيء آد قلبك هو نكسن وقفك نورشي سنة هو نكسن صوت محايا لقفك كتابك القرآن كحفظ سن يقفك كلا عن حفظ سنين ويكل دوينهن وحوي ويكل دوينهن مرولي بقى إن قلبك وولو كسر دعوه عاجزك كسر دعوه قلبك كسر دعوه مرقده قلوبتاس وحوي وقلوبتها عن قرآن كحفظنين لكنse هدي قرآن كحفظيدي وحوي قلبigaagu wuxuu noqonayaa fasax oo murugoon maayo qalbi murugadiisu ku badan yahay ama murugadu ay ku badan tahay ma noqonayo caajis kuma badanayo mujtamaca bili aadamku maanta waxay ka cabanayaan loo waxyaabahaas wuxuu noqonayaa qalbi ka fog insha Allah ta'ala. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka markuu soo dejiyay wuxuu u soo dejiyay in uu raxmad iyo caafimaad ummada u yahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yuqaalu li saahibi alquran qofka quraanka xifdisan waxa lagu dhahayaa iqra akhri oo kala dhigdhig sida uu kala dhigdhigi jirtay marka adduunyada joogtay quraanka sida uu akhriyi jirtay ee kala dhigdhiga iyo kutubta lahayd sidaas oo kale u akhri mansilada iyo booskaaguna waxa weeye waa meesha aayada ugu dambaysa taqra'uha aad ku akhriso aayatul akhirah ama cinda aakhir aayah taqra'uha aayada ugu dambaysa aad akhrido meeshaas ayaad degaysaa. maadaama ay sidaa tahay qofka quraanka ka xifdisan oo saddex juz ee quraanka xifdisan qofkaas insha Allah ta'ala maalinta yawmal qiyaamah uu akhrinayaa soddonkaba hadhowtana aayada ugu dambaysa ee suuratu al-baqara ama suuratu qul a'udhu birabbin nas haduu xaqa ka soo bilaabo suuratu qul a'udhu birabbin nas ugu dambaysa ayuu booskiisu u noqonayaa. markaana xifdigaagu haduu badan yahay oo aad saddex xifdisan tahay iyo hadii aad 20 xifdisan tahay hadii aad 10 xifdisan tahay hadii aad 5 xifdisan tahay de kala boos baa tahay. hadii aad qofka shanta juz qofka xifdisan iyo ka soddonkaba xifdisan isku mid maaha ama isku boos maaha. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna alladhi fi jawfihi shay'un min al-Qur'an qofka qalbigiisu una wax qur'aana ku jirin qofka gudihiisu haduu bila qur'aan yahay macnaha qur'aanka una xifdiyin qofkaas wuxuu la mid yahay sida guri kharaab ah oo doldolola oo bila jingada oo dhexdiisu waxba oo sidaas oo kale ayuu la mid yahay. macnaha guriga kharaabka dadku xitaa markii qaar saxara qabato gurigaas way aadaan waxay doonaan ku sameeyaan marka qalbigaas shaydaanku uu imanaya wuxuu doonaa ku sameeynaya xumaantu way imanaysaa waxay doontaa ku sameeynaysaa hawadu way imanaysaa waxay doontaa ku sameeynaysaa. qofkii kaadu u baahda suuqa markuu joogo dee kharaabad yar oo jeexan buu iska aadiyaa Soomaha oo go'aan halkaas uu kaadi ilaahiya marka qalbigaaguna waa saas shaydaanku qalbigaas ayuu soo aadaya hadii bila quraan uu yahay qalbigaas haduuna wax quraan ku jirin shaydaanku wuu soo aadaya. marka waa inaad iska ilaalisaa hadaa doonaysid shaydaan in la dagaalantid quraanka xifdi insha Allah ta'ala. sida ogtihiin quraanka marka xifdinaysid al-ilmu awwaluhu murbal wa akhiruhu al-asal ama xilwa cilmiga
iyo qur'aanka marka xifdinaysid marka hore wuxuu kuu noqonayaa qadhaadh adayg buu kuu noqonayaa adayg markuu kuu noqdo haddii aad ku dadaashid oo aad samirtid marka dambe wuxuu kuu noqonayaa macaan waxaadna ogaataa jannada in lagu hareereeyey waxyaabaha naftu ay kahanayso ama ay dhibanayso ay necab tahay marka waxyaabaha naftu ay necab tahay jannaday ku hareereysan yihiin waxyaabaha naftu ay jeceshahayna naartay ku hareereysan yihiin markaana haddii aad qur-aanka in aad xifdido necab tahay dembi maaha sababtaa qur'aan sidaas naftaa u abuuran wax kastoo wanaaga inay necab tahay laakiin meesha waxaa la isku dhaafay dadaal ayaa la isku dhaafay oo qofna uu dadaalayaa nacaybkii wuu iska saarayaa qofna nacaybkii ayuu ku qancayaa waxaana necab yahay qur-aankana maaha dee waa dadaalka iyo juhdiga kaa baxaya ayuu qofku necab yahay qur-aankana waxa weeye nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii dariiq raaqa man salaka dariiqan qofkii dariiq raaca dariiqaasoo uu ugu doonayo khayr iyo wanaag ama dariiqul janna waxa weeye sahla allahu ilaahay wuxuu u sahlayaa dariiqii jannada haddii aad dariiqa qur-aanka xifdiga iyo wanaagga aad raacdo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuu sahlayaa dariiqii jannadu kuu sahlaya mar kasta oo aad qur-aanka xifdinayso ogow ilaahay inuu kula doonayo in aad janno gasho markaad dadaashidna insha allahu tacaala kadib dadaalkaaga wuxuu noqonayaa faa'iido iyo wanaag inaad meel dhigtay markaan insha allahu tacaala waxaan doonaynaa qodobo inaan sheegno qodobadaas oo looga baahan yahay qofka doonaya inuu qur-aanka xifdiyo haddii aad doonaysid qur-aanka inaad xifdidid qodobada raac marka hore alisticaana la imow ilaahay subxaanahu watacaala kaalmayso oo ilaahay weydiiso inuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka kuu furo oo uu kuu fuudeeyo oo uu ku waafajiyo waafajintuna waxa weeye samanun dawiil hamoodin haddii aa ilaahay subxaanahu watacaala kaalmaysatid oo aa weydiisatid inuu qur-aanka kuu fuudeeyo haddana uu kuu adag yahay maaha arrinku laguma fuudeen ama ducadii lagama aqbalin waxan ama xifdigan muddo dheer markaa ku jirtid qalbigaa uu galaya hadhowtana faa'iiday ku tahay inuu qur-aanku ciyaar kaaga bixiyo sababtoo ah xifdigaagii ayaa badnaa in badan baa qur-aanka baranaysa marka qofkii in badan qur-aanka barta qur-aanku in badan qalbigiisa ayuu ku jiraa oo uu u food yahay marka waxaa lagaga baahan yahay inaa ilaahay subxaanahu watacaala kaalmaysato inaa ilaahay subxaanahu watacaala weydiisato inuu qur-aanka kuu fuudeeyo talabaad alijtihaad waa inaad dadaasho dadaal xoog weyn waa inaad la timaadaa xil kastoo aad jaanis yeelato 4 aayadood 3 aayadood iska qayb maalin dheeli qof kasta uu awoodaa in xitaa uu 2 aayadood uu iska qaybo bas 2 aayadood haddii aad iska qaybtid ama 3 sanadkii waxay kuu noqonayaan ilaa 10 jis ama ilaa 8 jis adoo diyaariyay hadhowtana way kuu fududahay inaad sidaasii ahaatid 5 sano oo aad qur-aanka diyaarinaysid ayaa waxay ka go'an tahay 5 sano aadan diyaarinayn hadhowtana aad noqoto adigoo aan waxba diyaarin marka maadaama adduunka aad ku nooshahay maadaama adduunkan aad intaas oo sano ku noolaanaysid insha allahu tacaala waxaa la doonayaa in aad qur-aanka ku noolaato maxay kaa dhibaysaa in yar iska akhri iyaga marka dambe way badanayaan saddexaad waxa weeye asabr in aad samirtid ijtihaadkii baan ku soo hadalnay oo dadaalkii saddexaad waa samir adkayso oo xilliga aad soo jeedaysid ama aad inta yar ee aafardid 15 daqiiqo intaad qabsatid 15 daqiiqo meel ha eegin لا تنظر إلى أي مكان إلى مكان بعيدة أم قريبة ملك لها إيجي عضو أنت ساعات قلاتيد وعشان يتوان دقيقة بستيد والكفر الرسول وملك لها حكو مشغول وحاوغانا سا إن شان صدر أما بوك أما بركي أما بوك با إنا قيبتي تاسع شان يتوان دقيقة أيا واحد كستبك على وعن أما لو تنطق أنت كلية سي وإندها يتاسقبتيد وسوجي سي 15 دقيقة أما 20 دقيقة ميلنا هوجيس and في الليل وأوقات الهدوء وإن القرآن كلا يقطع هبينكي وقتيا دجن
marka hurdada ka soo kacdo iyo marka ay xaaladu iska degan tahay kulayl uu jirin dhaxana ay jirin habeenkii oo kale markay sanqadhu yaraato la degan yahay haddii aad 20 daqiiqo siisid waqtiyadaas quraanku aad iyo aad buu ku gelayaa waxaa kaloo ka mid ah tikraar inaad ku soo celiso quraanka ku soo celiso wala 20 daqiiqo haddii aad bar isaga soo celiso akhrido hadana ku soo celiso isaga galaya ama uu ku jilcaya marka aayada marka ku soo celiso tikraar xitaa maskaxda hadaad doonto waxba ha gelin dad baa waxay isku khasbaan inay waxa maskaxda geliyaan maskaxda hadaad doonayso inaad gelisid ku soo celi isaga galaya maskaxda ku soo celin bas adaan u talagelin xitaa maskaxda inaad gelisid ku soo celi bas ku soo celi inta yar ha ka qaato العمل به قرآن كينا كعمل فشيد وحيالها هو وين أكا عظيمية إن قرآن كحفظ الصوت وآياتها القرآن كمرها كعمل فشيد ميلا وسيد المعلم إنا قبستيد ومعلم كاسماني كاستوى أفر آيات شن آيات وكارجيستو هذه إنت كلية سميسيد ومعلم كقبستيد معلم كاسماني كاستوى واسح القامسة وحوي وكحسة تمسة إنت قرآن كسود يارسيد أيا إيمان صح sababtoo ah macalinkan ayaa ixtiraamaysayo hawl buu ka sugaya marka laga sheekeynayo daalka iyo nisyaanka iyo cajsiga waxa bari baan qabanaya marka doonaysid meelaha marka laga sheekeynayo in waxyaabaha ka fogaatid badanaa dadku waxay dadaamaan ama dadka xikmada badan in waxyaabaha laga sugayo aad naftaada u dirto sababtoo ah wixii laga sugaya naftaada way u sahlan tahay waxaas in uu qofku u diyaariyo ijtinaab dunub الاجتناب الذنوب أما اجتناب الذنوب إنا ذنوب تكفكاتو وشيء قوي إكاعوني إنا قرانك ما كرنا ساعة أدفانتي أما حفتي رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها نشاعر وحجري ذنوب توحاركي إن أي ذنوب قلبك هلاكتو أما أي دشو قلبك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها ذلنا قفك وحيهلا ذلك مركا ودنبي ودائما وكتجوايو دنبي حتى كتجويسيد وحوي ودائمسا سؤالان السنة حتى كتجويدي تمانك استوحى رهيا قفكي أما هبلي أما هبل أيدي سلاحي هذا تنعب أيكون قناة صوت وأبيها كتجوايا دنبي waxaan kusoo gabagabaynayaa insha allahu tacaala qofku waxaa laga yaabaa dadka fara badan ama inay dhahaan qur-aanka haddii aanan ku camal falayn maxaan ka baranayaa su-aashaas horta waa su-aal isweydiin leh cilmiga marka la baranayo garanaysaa dad fara badan baa oo taabiciinta ka mid ah ayaa waxaa dhahaa cilmiga waxay u barteen ilaahay qeyrkii adduunya doon ayay u barteen hadhowtana cilmigii wuxuu diiday إلا عبسي يين إلهي لعق عبصده يين آخر ودونا مهار معناها القرآن كان هذا مركه هوري أديكو رادعة ودنو فربضان يو حاله هدي أبرتيد القرآن كو حالة يا إنه كو كلفو إن إلهي سبحانه وتعالى كبقليد إن طريق ونكسن أراد القرآن كو كان على جاي سيدا بدلنا تاسوي صوته القرآن كو إيمان كو سيادية مركز تو القرآن كبرتيد إيمان باب هلسة يينا اسكو جرتيد عمل كو نكسن إن شاء الله تعالى إنتاس أيانو كسو كبكبرنا intaas ayaa looga baahan yahay qofku inuu ku dadaalo hadhow tana u gaaraya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.